filashada dadku ma aanay ahayn in qof Soomaaliya lagu wareejiyo dawladda Itoobiya iyadoo xukunka uu ku fadhiyo madaxweynaha haysta taageerada shacabka ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. dadkan isugu soo baxay fagaarahan waliba iyadoo qoraxdu kulushahay waxay ka siman yihiin hal mid waana in dib uu xuriyadiisa u helo Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo qaranka la khiyaameeyay oo loo dhiibay cadow asagoo muwaadin Soomaaliyeed shalayna ay madaxweyne iyo ra'iisul u dhaarteen dalka inay iyagu ummadda Soomaaliyeed mas'uul ka yihiin khiyaamo qaran marka arrinta anagu yaan ka xunahay. Xamdi Maxamed Cabdi waa afada saddexaad ee Cabdikariin waxay u sheegtay goobjoog in dawladda meel ka dhacay u geysatay dadaalkii iyo qarannimadii uu taagnaa saygeeda. dabaad garanaysaa caruur aabahood la xaabiyay qofka Soomaali waxa dhaqanaa qofku markuu ka geeriyoodo ee si inagoo noqon tartiib u geeriyoodo ehelka u soo tacsiyay qaraabada u soo tacsiyaysa ruux walba meel buu yaalaa ruux sawirkiisa garanayana ugu dhacay ruuxii ehelana ugu dhacay cidna tacsiyaysa iyo cidna gurigii madoobaaba dhibaatada wax sataan ku jira anaguna Soomaali qofkii damiir qof walba bartay dhibaatada ku qabsato yaala tacsina ma haysano laakiin madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inuu ilaahay dhacdo xanuun la kugu keen dhacdo xanuunkeena uu keentay naga furtaan ka doonayna. wiilkiisan oo curud u ah qoyska saddexaad oo aan la kulannay wuxuu sheegay in aanu dhaamin agoon sida uu yiri maadaama aabihiis loo gacan galiyay Itoobiya xilliganna ay ka istaagtay waxbarashadii uu watay. Kaasaniya adeeg farmaajodan inuu soo ceshan abxaan kani waa wiil kamid ah wiilasha uu dhalay mudane Cabdikariin Sheekh Muuse oo hadda la sheegay in lagu wareejiyay dawladda Itoobiya sida arkaysaan wiilkan yar ee ilmeynaya wuxuu kamid yahay ilmaha uu dhalay Cabdikariin waxayna absanayaan dhamaantood qoysaskiisa kala duwan in dib uu helo xuriyadiisa muwaadinkaas oo la aaminsan yahay in kaalin wanaagsan uu ku lahaa bulshada iyo geedka qaadka wanaagsan ee Soomaaliya raadinta ay ugu jirtay sidii ay u midoobi lahayd. Nasr Maxamed, Goobjoog TV, Muqdisho.